munaasabadan ay ku qalin jabinayeen 517 arday oo dhameysatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Horn of Africa jaamacadda Geeska Afrika oo ah dufcadii lixaad taasi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Geeska Afrika waalidiin aqoon-yahano macallimiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Horn of Africa ayaa ka hadlay dareenkooda aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo istaago anigoo ku hadlaya magaca dhammaan ardayda maanta qalin jabinaysa ee ka qalin jabinaysa kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Geeska Afrika sida kulliyadda engineeringa kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha kulliyadda caafimaadka kulliyadda hindisaha kombiyuutarka ama IT-ga kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan sida quruxda badan oo u dhacday waxaan u hambalyeeynaa mahadnaq oo diraya maamulihina abashiir iyo dhammaan macallimiinteena agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada ee ra'iisul wasaaraha ahna madaxa barnaamijka isxilqaan Maryan Aadan Amiin ayaa ku boorisay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Horn of Africa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka halay soo raaco halay la shaqeeyo meel walba aan galno ardayda ila shaqeyso kulli shaqay heleen kadib ay shaqo heleen marka wadanka volunteer u shaqeyso wasiir dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Qaasim iyo xildhibaan Maxamed Saciid Tooxow ayaa ku booriyay ardaydu inay sii wataan waxbarashadooda marka labaad waxaan u hambalyeeynayaa macallimiintii qaybta lixaad kale ay ka qaateen waxbarashadiini ayaguna 4 sano ayagoo dhibaato badan ay jirto waliba aan la isu dhaqaaqi karin subax walba waa idinku soo kalahay oo galab walbana ka tagay ayaguna waa u hambalyeynaya waxaan idin leeyahay 60 sano ee aan xurriyadda aan haysanay kicitaan iyo kufitaan aan ku jirnay kuwa aan rabno inay Soomaaliya dhaqaajiyaan waa idinka dhiinka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Abdulqaadir Maxamed Dhicisow ayaa u hambalyeeyay ardayda jaamacadda Horn of Africa wuxuuna soo jeediyay in la xoojiyo dhaqanka Soomaaliyeed ummad kasta waxay leedahay dhaqan iyo hidde leedahay dharkan aan ku qalin jabinayno hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ma aha annagoo dharka iyo hidaha dhaqanka aan leenahay aan ku qalin jabin karno kuwaan inaan maanta wixii ka dambeeyay iska joojino ayaan tale idinku soo jeedinaya gudoomiyaha jaamacadda Horn of Africa Maxamed Cismaan Abashiiqa ayaa hambalyo u diray waalidiinta ardayda maamulka jaamacadda wuxuuna sheegay in jaamacaddu ay wado dadaalo lagu tayeynayo waxbarashada sare haddii jaamacad walba oo magaalada ka jirta qayb ay ka geysato in ay isbedelka uu wadanka iyo dadku ay u socdaan ay ka qayb qaataan waxa hubaala in wadanka oo dhan si degdeg ah isku bedeli doono gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Horn of Africa Muuse Cismaan Abtoow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho